labaad waxaan jeclahay inaan shaqo u diro dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee maanta geeriyooday qaraxii xushnimada ahaa ee ka dhacay isku Zobe oo dad masaakiin ah oo wax ku qabsan lagu laayay inta dhimatayna Ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacantayna Ilaahay ha soo bogsiiyo inta hantidooda ku baaba'dayna Ilaahay meel kale oo khayr qaba Ilaahay ha ka siiyo marka xiga waxaa sharaf weyn ah in aan xafladan maanta aan idin kala soo qayb galo runtii Soomaaliya waa ogtihiin qurbo joogta meeshii rabaan joogaan waxay door muhiim ah ay ka ciyaareen nolosha Soomaaliya inay wax badan ay sii shaqeyso oo ihsaa'iyaadka la sameeyay oo ugu yaraan $1 bilyan ay u diraan dalka bulshada jaaliyadda Koonfur Afrika ee Soomaaliya deganna waxay ka mid tahay jaaliyadaha ugu wax soo saar badan oo ognahay kuwii jooga inta badan xayir qaataan laakiin jaaliyadaha Afrika jooga xoogooda haba ugu horeysa South Africa dad shaqeysto ganacsataa ah marka waxay qayb weyn ka yihiin bulshada ka qayb qaadata dib-u-dhiska dalka iyo caawinta mar waliba oo qalqaleen dhaca marka ay kaga mahadcelinayaan mar waliba marka labaad dadkii gudaha looga soo tagay iyaga laftirkooda haddii aad ka soo tagtaan dalka macnaheeda iyagana iskama jiifin ma aysan higi jabina shaqooyin badan ay qabteen aniga for example markii ugu badnayd magaalada Muqdisho ku dhashay inta ugu badnayd aan ka maqnaa 100 maalmood wixii dagaalada inta dhaco dhan meesha ku bartay ganacsadan ka ahaa ilaa hay'adaha international aan kala shaqeynay company aan lahaa contractor ka ahaa oo UN contractor aan ka shaqeynay marna kama soo tagay dhalinyaradii magaalada waa ka soo tagay waxbay barteen magaalada qayb weyn ka qaateen haddana dawladda ku leeyihiin door weyn ay ciyaarayaan marka Soomaalida meel waliba joogaan way isku baahan yihiin way wada shaqeynayaan waxaan rabaa xildhibaanada Soomaaliya ee heer federaal xildhibaanka maxaa shaqo laga rabaa doorkiina ma fahamsanin aan weydiisay xildhibaanka waxaan u maleynayaa 3 shaqo ayaa aasaas u shaqooyinka uu qabanayo oo koow ah waxaan ka tirsanahay xildhibaanadeena golaha shacabka matalida shacabka iyo inaan ku sameeyno muraaqibeyn ama oversight xukuumad oo golaha fulinta iyo midda saddexaad baarlamaanka wax loogu talagalay inay sharciyada lagu shaqeynayo ay abuuraan ismaayaan oo sharci dejiyaal waxaan ognahay isfahamkii dadka dhexdooda iyo dawladnimadii ayaan weli dhameystirmin haba ugu badnaatay dadkii oo waqti badan bulshada Soomaaliya inta ugu tirada badan waa dhalinyaro dawladda intay hadda maqan tahay waa 30 sano fahamkii dawladnimadii ay iska yar waxa dhacaysa qof constituency-ga ku soo wacay wuxuu ku leeyahay hebel baa la xiray soo day xildhibaanka boolisna ma aha nabadgudna ma aha institution ayaa jira oo loogu talagalay dawladda inay hawlahaasi ay qabtaan marka waxa socda hadda xukuumadda magaalada ka jirta Muqdisho Soomaaliya guud ahaan wasiirka cadaaladda reformation badan dib u habeyn ugu sameeyay nidaamka cadaaladda problemka dadkii waxa dhibaato ka timid waxay ku kalsoonaan waayeen habka cadaaladda haddii uu tago maxkamadda wadogtay dhibaatooyinka dhulka magaalada Muqdisho ka jira haddii si sax wax loogu xukumi waayo wuxuu raadinayaa reer hebel u raadinayaa xildhibaankooda reer hebelna wuxuu influence gareynayaa go'aankii maxkamadda kadibna waxa ka soo baxaya ama kan meesha joogaaba lacag rabo marka waxa isdhexgalaya shaqada xildhibaanka loo diray iyo hay'adihii institution-ka shaqadooda marka xildhibaanka saddexda shaqo leeyahay oo anaga hadda aan qabanaa aan fahamsanahay wax badan oo qurux badan dalka uu ka socdo oo hadda sidoo haddii aanan cadaalad la helin amni ma imaanayo waxyaabo badan oo tiro badan oo dhaqaalihi iyo horumarka uu kamid yahayna ma imaanayo waxa laga yaabaa inta banaanka joogtaan inaa maqashaan waxyaabo badan oo aad u foolxun tusaale qarax baa dhacay saxaafadeena waxay aad u taqaanaa tabinta waxyaabaha xun ani saxafi international aan xoogaa soo ahaa LA Times wax ku qori jiray TV-ga hadda Johannesburg degan Mareykanka laga leeyahay Bloomberg-na waxaan ku qori jiray arrimaha ganacsiga saxaafadda Soomaaliya inta badan waxay hadlaysay qaraxa dhacay qof aan dhintay qof aan la dilay هذا هاد magaalada tigtid infrastructure laamiyada hadaad aragtid
sidee ahayd 2011 hadeer ma aha number 1 dhaqaalihii wuxuu samaynayaa booming bangiyo waxaa jira waaweyn oo hadda magaalada ka shaqeynaya oo xawilaad banaanka sameynaya sida ogtihiin xukuumadda waxay ka shaqeynaysay marka hore wax badan ay soo qabteen xukuumadihii jira runtii laakiin waxaa lagu eedeynaya wax tiro badan oo musuqmaasuq maanta xukuumadda waxay ka shaqeynaysaa inay aad u dhiirigeliso danaha shacabka Soomaaliyeed guud ahaan waxaad arkaysaan Soomaali tiro badan oo ku xirnaa dalka dibadiisa oo dhibaato badan ku haysatay qaar 10 sano wax ka badan xirnaa in dalka Itoobiya laga soo daayo hadda kuwa baarlamaanka horyaalay heshiis u dhaxeeyay Soomaaliya iyo India maanta la ansixiyay horyaalay oo ahaa in maxaabiista la isku daayo waxaa laga yaabaa inay inta ku xiran yihiin South Africa maxaabiis tiro badan dawladda maanta waxay ka shaqeynaysaa danaha dalka inay ka shaqeyso sababtoo ah waxa lagu dhaariyay annagana aan ku dhaaranay waxa ay saddex arrin ka shaqeynta danaha dadka iyo dalka iyo diinta marka wax badan aan socdo oo wanaaga oo loo qabanayo bulshada lagu dhiirigelinayo xukuumadda waxay ka shaqeynaysaa maanta dalka sidiisaba kuma hormaro qof jeebkiisa waxa uu ka soo bixiyay annagana waad ogtahay dhaqaalaheena meesha uu marayo Soomaaliya waxaa hay'adaha internationalka lacagta sida IMF oo kale waxay ku lahayd lacag aad u tiro badan oo markii macalqibada lagu daro gaaraysa ilaa $5 billion lacagaha Soomaaliya mar walba way ku socotay xukuumadda hadda timaaday oo hogaamiyay Prime Minister Xasan Cali Khayre waxay ka shaqeynayeen ilaa ogaalkayga inta hadda ugu dambeysay in deynta Soomaaliya laga dhaafo sababaha aan looga dhaafi karin waxaa ku ahaan jiray musuqmaasuq iyo dhibaato tiro badan oo dalka ka jiray dartiisa waxaa loo soo gudbiyay criteria 1 2 3 4 5 6 hadda waxaan samaysaan waxaa Soomaaliya loo dhaafi doonaa deynta haddii deynta loo dhaafo maxay hirgalay hadda South Africa aad joogtaan wadooyinkiisa waaweyn aad u jeedaan dawladda iyo dadka wax laga qaaday lagu marsan ama kambaniya maalgeliyay oo dib lacagta uga goosta iyadoo qaab canshuur ah ama waxa laga yaabaa in deymo banaanka lagu soo qaatay lagu soo waxa noo fududaan doona marka in dawladda Soomaaliya marka ay lacag deymo ay qaadato ay ku dhistay infrastructure sababtoo ah haddii aan la horumarin infrastructure-ka dhaqaalaha ma horumara wax soo saarka shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe hadday Muqdisho daqiiqada ku soo gaarayaan ay waqti badan ay soo marayaan waxa ku qaadanaya ganacsiga horumar fiican inuusan sameyn waxa noo fududaan doona marka Soomaali ahaan inaan deeq qaadano infrastructure-keena aan dhisano dhaqaalaheennana uu kordho marka waxyaabo tiro badan oo wanaagsan ayaa ka jira dalka waad ogtihiin ciidamada qaabka ay yihiin aad isugu dhaxyacsanaayeen wixii hore ciidamada waxay aad ugu caban jireen dhinaca mushaaraadka waxaa laga yaabaa nin kaliya ah inuu sheeganayo ilaa 1000 ciidan inuu mas'uul ka yahay ama 500 ama 300 hadba sida ay tahay gudooyinka haddana ciidanka physical appearance-gooda inuu sii jiro hadda waxaa laga shaqeynayaa maadaama nidaamka federaal la qaatay in ugu yaraan la dhiso ciidan ilaa 18,000 ah oo laga shaqeeyo mushaaraadkooda caafimaadkooda iyo tasiilaadka kale u baahan yihiin waxay fududaynaysaa marka dalka inuu yeesho at least ciidan isku dhaf ah ay shaqeyn karaan hawshaasna way socotaa maamul goboleedyada iyo heshiisay ku kala gaareen dawladda inaad saxaafadda kala socotiin laga yaabaa waxay fududayn doontaa ammaanka in wax badan ka horumaro magaalada waxyaabo badan oo qaraxa ka dhici jira laakiin maanta horumar badan ka jira ammaankiina waxaa dareemaynaa wax badan magaaladaan ku dhex nool nahay weligii kama teginaan Muqdisho hadda waqtiyada ugu fiican ay ka mid tahay oo ammaanka uu soo horumarayo uu samaynayo marka inaad ka baxdaan ma idinku ganacsigiina wato contribution ka samaynayo inaad caasimadda timaadaan ee aad soo booqataan businessyada ganacsatada waaweyn inta ku leh iyaga laftirkooda ay qayb ahaan ay maalgeliyaan wax magaalada Muqdisho ka jira because dalkaaga waay horumarkiisa inaad ka shaqaysid waay marka taasna inaad qayb weyn ka qaadataan haddii dadkii dhinaca canshuurihii bixintiisa aad ka kaalmaysaan dalka dhaqaale badan uu helayaa wax badan waa u qabsoomaya sidii magaalada ahayd 5 sano ka hor maanta ma aha wax badan oo wanaag ayaa ka jira oo horumar ah haddii waxbarashada ahaan lahayd jaamacadaha tayadooda iska wadiitaanba laakiin waxaa jira jaamacado wax soo saareen ardaday soo saareen aan kamid ahay aniga maantana xildhibaan dalka u ah marka in la dhiirigeliyo waxyaabihii localka jiray dhalinyarada waxaa aad ugu tiro badatay xukuumadda waxaa aad ugu badnaa furjoogta marka dhalinyarada waxay keenaan tahriibaha maanta
biri qurba joogu noqonaa saada bana wasiiru noqonaya marka sidaas darteed waxa la encouragement gareynaya in dhalinyaradu ay tahriibaan ma ahan kuwa gudaha ku jirayna waxbay qabanayaane inaad idinkana aad dhalinyarada aan loo fududayn inay tahriibaan gudaha lagu empower gareeyo hadday waxbarashada ahaan lahayd iyo hadday siyaasadda ahaan lahayd kasoo qaybgalkooda marka jaaliyadda waxaan leeyahay waxaan hadda dareemaynaa xildhibaan ahaan annaga inta aan joogno inay safaaraddu intay ka maqanto waxaan dhihi lahaa waxaa laga yaabaa ma hubo in xiriirka safaaraddii community uusan qurux badnayn laakiin mas-uuliyaddiinay tahay sidii uu xildhibaanka ka dhawaajiyey inaad xiriir fiican la samaysaan safaaradda aad dacmisaan maadaama ganacsatadii aad tihiin aad maalgelisaan safaaradda safiirka wuxuu ka shaqeynayaa waxyaabaha danihiina ay tahay wax kale kama shaqeynaya sababta loo soo magacaabo waa madaxweynaha wakiilkiisa ee dalka aad joogtaan marka inuu jiro noocun wada shaqayn safaaradda iyo community-ga annaga waxaan diyaar u nahay waqtiga annaga inta aan joogno inaan ka shaqeyno arrintaasi haddii uu isfaham darro jiro safaaradda iyo community-ga dhex waa arrin muhiima waxaa jirta dhibaatooyin badan in jaaliyadda South Africa guud ahaan inay haysato hadday ahaan lahayd dhinaca ganacsiga for example oo waxaan inta badan maqalnaa dhalinyaro lagu dilay Koonfur Africa waxaan isku dayi doonaa guddoomiyaha bariga Afrika Ban Africa Parliament la jooga xildhibaan xukun inaan ugu yaraan at least qadiyadaasi Ban Africa aan gaarsiino Soomaaliyada sometime waan idin ballan qaadaynaa qaybaheeda kala duwan waa weydiiyey departmentyada maalmaha kooban aan joogo hadday jiraan mooshinna Soomaaliya dowladda Soomaaliya ay soo gudbiyeen xildhibaanadooda ee arrimahaas ku saabsan qaybta legal department-gaan weydiiyey waxayna ii sheegeen inaysan weli jirin marka in xildhibaanada hadda aan ku oolanahay aan ka shaqeyno at least inaan gudbino si protection fiican aan u helno ta kale nin ka mid ah mas-uuliyiinta ganacsatada hadda inta ka hadlay magaciisa sanay gacmi mu aha wuxuu noo sheegay dukaamada dhalinyarada qaarkood inay sii gadayaan oo sii tahriibayaan okay ganacsatada waaweyn way saameynaysaa arrintaasi gaas qofka ganacsiga iska leh wuxuu ku xisaabtamayaa inta badan clientigiisa haddii clientigaaga uu maanta uu kaa guuro ama uu baaba'o waxay saameyn ku yeelan doontaa dhaqaalihii adiga aad helaysa wixii kusoo geli lahaa haddii hal dukaan oo bannaanka ku yaallo la gado community-ga rabaan ha gato waddanka raba ha gato uu baxo waxay dhibaato ku tahay ganacsadaha weyn ee wholesalerka because clientigaasi locationka ku joogo waxa uu ka qaadanayo badeecadaada uu dadka ka sii gadayo kaliya asima khasaarine at the end of the game adiga khasaarayo because waxa aad keenaysid cidaad ku supply gareen lahayd waxaa jiro in wadamo kale ee dagaalo hoose community Soomaaliya ay ku hayaan ee dukaamadooda ay gadanayaan marka ganacsatada waaweyn ay recommend kula talin lahaa hadduu ninka dhalinyarada go'aan gaaro marka hore wacyigelin inaad samaysaan dhalinyarada ganacsigooda in sharci laga dhigo qareen loo qabsado problemada jiro waxa kamid ah lacagii cash-ka waxa lagu hayaa dukaanka tuugan uu ku dhiiranaya inuu wax dhaco at least aqooma inaad isticmaashaan haddii aad furan kartaan haddaadan furan karinna safaaradda inaad kala shaqaysaan nidaam sharci ah at least dhaqdhaqaaq ganacsi aad ku samayn kartaan hadduu qofka go'aansado wacyigelin ka bacdina ganacsatada inay ku hawlanaato inay kala wareegaan in still of community kale ay qaadan lahaayeen haddaadan hadda samayn biri adaa meel cid la soo istaagi doono wax kaa gantaad weyn doontaa because dadka alaabtaasi bixinaayo waa dadka adiga supplierka ku ah badeecadaadi gadaaya birina aad u baahan tahay inay ku sameeyaan investment dib ay ku soo celiyaan yaanu ku dheeraan xogaan dhaqaalaha soo kartay waa dhibaysa dagaal dhaqaalo oo dhinacaas inuu lagu socdaan dareemaya marka community-ga qaybta ganacsatada ee waaweyn inay arrintaasi ay istaraatiiji gaar ah ay ka qaataan waxaan kala hadlay safiirka oo arrintaasi aad aan ugu soo qaadnay inuu shir jiru ii sheegay marka in general strategy aad samaysaan aad arrintaasi aad ku wajahaysaan sida loo protect garan lahaa ganacsiga yar Soomaalida dhalinyaradooda ay leeyihiin marka waxaan dhihi lahaa oo kale waxaa jirtay constitution-ka problem badan oo ka taagan waxaan ognahay hadda maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka waxa isku haystaan dastuurka kala saara dastuurka qodobkiisa 54 wuxuu si toos u qeexayaa dhaqaalaha iyo qaybsiga qaybtiisa hore inay ka wada hadlayaan
دولة goboleedyada iyo dowladda federaalka laakiin dowladda federaalka inay u madax banaan tahay afar shay oo kow ka yahay xiriirka arrimaha dibadda ama arrimaha dibadda waxa uu sameeyo oo dhan difaaca guud iyo jinsiyadda iyo arrimaha ku saabsan lacagaha waa mas'uuliyadda dowladda federaalka maamul goboleedyada marka sida xildhibaanka sheegay sid bursi ay sameynayaan oo waxay ku dhiiranayaan awood aysan lahayn inay qaataan maxaa keenay marka hore xildhibaanada waxa loo xilsaaray dastuurka inay ku sameeyaan review inay ku sameeyaan oo qabyadaha inay dhameystiraan haddii la dhameystiri waayo way ballantuna ay ahayd in la gaaro hal qof iyo hal cod haddii la gaari waayo maxaa dhacay waa lagu xisaabtamayaayo nidaam kale cusub in la keeno way imaanaysaa marka ama hala sameeyo madal hala sameeyo ama saxiixayaal hala sameeyo sidii hore u dhacday waagii Sheekh Shariif waxaa loogu soo gudbiyay baarlamaanka xilligaasi road map la sameeyay Kampala Accord 6 nin oo signatories la sameeyay ayaga waxay sameeyeen odayaal 135 la yiraahdo oo xildhibaanada soo xogay haddana mar labaad waxaa lagu guuldareystay in constitution-ka la gaarsiin waayo meesha loogu talagalay waa markii dambe waa tii la sameeyay madal wada tashi NCFT loo bixiyay ka bacdina madasha hoggaanka loo bixiyay 6 nin isku imaadeen tii laga wada marka dowladda goboleedyada ama dowladda goboleedyada mas'uuliyadooda waxay ka shaqeeyeen inay madashi soo galaan oo awood ay ku yeeshaan oo doorasho dadban la sameeyo guddiyo doorasho dadban oo heer federaal iyo heer gobolba la sameeyo awoodii meel ay ku ekeed marka waxaan failure ka keenay constitution-kii oo wali la dhameystirin oo meeshii la rabo aanan la gaarsiin tiya marka waxay keentay haddii laga soo gudbay baarlamaanka oo shaqo qabsan inay hadda ay leeyihiin waxaan ka shaqeynaynaa xiriirka arrimaha dibadda sameeynaa يا أوداس حاجة مال وسيد دستور توجد سوماليا بربلامي بدنا كدعي واحد لو شيء وحياة constitution كذا قرار على سمية referendum قبض كل يكوي تونكي لبي تونكي يكون قفوا ذا وقضي ساسو قبل قرار واحد مركب واحد سيلقوه شيء إلا دورة ما هو الجولات هذا واحد لو جبها هي واحد تاعي إن يكون دوران دولة الحين أفرت وحياة بعض constitution كوصينا هي إن يسميان إنه مرحبا هذا مركب I would like in Soomaaliya waxay kasoo jeedaan gobolay kasoo jeedaan qabiilka xoogaa in laga gudbaayo muddo inay influence-gooda isticmaalaan wixii heer gobolna ay ka shaqeeyaan awoodooda iyo inay ku mashquulaan horumarinta community-gooda xildhibaanka wuxuu noo sheegay koonfur galbeed in dhibaatooyin badan xagga abaarta biyaha iyo adduunyada ka jirto maamul goboleedka mas'uulka ugu sareeyo ama madaxweynaha ka aaday shaqada ugu horeysa ay muhiimka u tahay community-giisa inuu adeego arrintaasi wax ka qabto instead uu ku mashquuli lahaa maxay tiri Imaaraat iyo Saudi and something like that oo hawl aan constitution-ka uusan u lahayn in uu qabto marka waxaan u dhaaranay saddexdaas shay inaan ka shaqeyno danaha dadka iyo dalka iyo diinta waana ka shaqeynaa qof qabiil gaar ah wax loogu sameeynaa ma dawladda waa protect gareynaynaa waa ilaalinaynaa waxaan ku ilaalinaynaa inta sharciga iyo dastuurka ay dhowrayaan haday qaldamaan sidaan u dhaaranay waa saxina haddii ay laga qaldan yahayna sida hadda waxyaabaha aan u jeedno problemka ay tahay waxaan u hiilinaynaa wixii xaq ah dawladda dhexe waxay ku saxan tahay u shaqeynta dadka shaqo badan socoto laakiin waxa hadda la hor istaagaya shaqooyinkaasi inaysan socon waxa lagu mashquulinayaa waxa loo yaqaan crisis management maalin baa waxaad arkaysaa nin siyaasi ah qarax baa dhacay dad baa dhintay dawladda ay iskale wish dawladda ay iskale anagoo dhan iskale dawladda anaga kamid ah in laga wada shaqeeyo marka shacabka meel waliba ay joogaan community kasta inaanan lagu kala qaybsamin qabiil ahaan idinka xildhibaanada idin matalaya inaad iska warqabtaan dawladda inaad ku ilaalisaan kullamaa ay wadada saxda ah ee aan ku heshiinay dastuurka ay ku socoto haddii ay qaldanto laakiin maxaa la sameynaa oo gabadha qabtay haddii ay galaas bii ku keeni weysay xaquuqeeda furiin miya أنا أدو حاركنا بروبلما دعي دولة هلا فيدا. That's not معهن punishment تيجي حكومة معنا. ده غلط سمايسو حكومة غلط كسمايسو برلمان كم حقود وليين oversight إنه سمايا. وزير كبروبلم كسمايا إن لو علو ويديو. مركو جوه رئيسه سيد بدومي على الإيراد محمد عمر شيء جانس لسيون لدمينو ليرا. وحنا أقل دم بين الله وخرا. هدي وجاره هير دستور وجبينا. هذا مسؤولية دي سمكواه. هدي غلط يروي هنا. la siiyo warning la siiyo marka inaan ka wada shaqeyno dhibaatada dawlad la'aanta Soomaaliya ay dhigtay oo u jeedaan meel waliba ay ka sameeyeen iftiinka yaraan haysano inaan ka shaqeyno ee aan ilaalino maanta wakiil aan ku leenahay baarlamaanka Baan Afrika waxa laga fikirayaa oo loo socdaa in Afrika la mideeyo
xildhibaanada baan Afrika waxay leeyihiin baasaboor la yiraahdo midowga Afrika macnaheedu inay isku mid yihiin oo kale ay hal baasaboor leeyihiin waxaa loo socdaa in la gaaro United States of Africa oo hal ciidan loo sameeyo caalam way leeyihiin baasaboor loo sameeyo dadka la mid ah annaga waxaan joognaa annagoo dadkeena lagu qiyaasayo 12 milyan in la yiraahdo maamul goboleedyadii waxay noqonayaan dawlad goboleedyo ama dawladyo madax bannaan oo xiriir bannaanka ay sameeyaan waa runtii ihaano iyo dhibaato dalka haysata waxayna keenaysaa dib u dhac tiro badan marka aan ka wada shaqeyno qabaa'ilada way isbedelayaan kii 2000 ahaa dawladda caafta madaxweyne oo qabiil ay ahaa maanta 2017 ma aha qabiil kale waa marka waxaan wareegto waaye qofkii ilaahay ugu tala galay madaxnimo uu noqonayaa uu helayaa laakiin qofku markuu helo in la shaqeeyo wax laga shaqeynaa maxay tahay dalka meeshu joogo from A to B to C ilaa meesha ugu dambaysa in la gaarsiiyo oo aan la tartanno dalalka kale ee qaaradda Afrika ma ahan inaan kala qaybsano marka aan isku ogaano taas inaan ka shaqeyno inaan isku fiirin dawladnimada aan haysano aan ka shaqeyno meel waliba ay tahay wakiilada oo mas'uulka wuxuu dhahay waxa muhiim ah in meel waliba dad leeynoo joogaan mush inay dad noo joogaan ma yahay baarlamaanka baan Afrika aan ka tirsanahay waxaan ka sheegaynaa qadiyada Soomaaliya oo dhan oo igu horeysatan iyada hadda koonfur Afrika ay ku haysato oo isla ceebka dadka dhalinyarada lagu dilaayo oo ganacsigooda lagu baabi'inayo inaan meeshaas aan ka sameeyno maxay rahay influence hadda waxaan xubno ka nahay doctor jaamacadda Carabta xildhibaanada Soomaaliya qaara maanta waxay shir u fadhiyaan shirka dhacayo Ruushka ee ku saabsan arrimaha baarlamaanada European Union oo wakiilada marka meel waliba Soomaaliya wakiila u joogo maanta qadiyadooda laga sheegaya marka please yaan dib noo celinin ee aan hore u socono aan ka bilowno wada shaqeynta community-giina inaan saamintaan xiriirka community-ga iyo safaaradda aan la sameeysan anagana wax alla wixii feedback ah oo dhibaato ka dhacda aan facilitate gareeno wixii aad dhambaal noo dhiibaysay inaan xukuumadda ku celinayna aan dhahna jaaliyadaas soo aragnay dhibaatadaas jirta for example dadka xiran oo kale intaas ay leeyihiin waxay ku xiran yihiin sharci ama sharci darro waxaan u baahanahay in la facilitate gareeno wasaaradda arrimaha dibadda waxay ka shaqeynaysaa maanta u jooga wasiirka arrimaha dibadda in wasaaradda arrimaha dibadda lagala hadlo maxaabiista inta ku xiran in la facilitate gareeyo la daayo xorriyad la siiyo inay dalkooda dib ugu laabtaan marka si constructive in loo wada shaqeeyo saas ayaa qurux badan idinkana inaa ka bilowdan marka waa mahadsantihiin mar kale soo dhaweynayo